Asalaamu calaykum. Qaaradda Afrika waxaa Allah ku manaystay kheyraad sida dahab, diamond, saliid, uranium, birta iyo kheyraad kale oo qiimo badan. Laakiin dadka ku nool waxay muddo dheer kaalinta koowaad kaga jiraan dadka kuwa ugu saboolsan dunida. Inkastoo dalalka ka hooseeya saxaraha Afrika ay si fiican wax u socdaan, sababtoo ah waxaa ka jira qaar ka mid ah dhaqaalayaasha adduunka kuwooda ugu koritaanka badan. Magaalooyinka waaweyn ee Nigeria, Kenya, Koonfur Afrika, Angola iyo meelo kale ayaa astaan u ah hadallada ah in Afrika ay sare u kacayso. Dhismaha waddooyinka waaweyn iyo isku xirka tareenada, guryo malaayiin doolar jooga iyo xarumo ganacsi ayaa ka furmaya magaalooyinka waaweyn. Tiknoolajiyadda sii kordhaysa ayaa ah astaamo yar oo muujinaya korarka barwaaqada qaaradda. Laakiin ilaa iyo hadda inta ugu badan dadka ku nool qaaradda Afrika waa dad sabool ah. Haddaba su'aasha taagan waa maxay sababta Afrika u tahay sabool? Waxaan maanta soo qaadan doonaa 7 sabab oo ay Afrika ilaa sanadan 2019 faqiir u tahay. Waxaa nambarka koowaad kaga jira dagaalada sokeeye iyo argagixisada. Dooda ah in dagaalada sokeeye sida argagixisada ay sababaan saboolnimada waa mid jirta oo waliba sax ah. Dagaalku wuxuu jahwareeriyay dadka oo ugu tagaa saboolnimo. Waxay sidoo kale jiraan ganacsiyada iyo macaamiishooda. Waxaa intaa dheer waddooyinka iyo shabakadaha isgaarsiinta iyo warshadaha oo burbura. Dadku shaqo la'aan ayaa ku dhacda, halka maalgashadayaashuna ay lumiyaan kalsoonidii ay ku qabeen dalka dhibaatada ka dhacday. Sidaa darteed, dagaalada sokeeye waxay ku reebaysaa waddanka dhibaatadu saameysay inuu dhaqaalihiisa hoos u dhaco. Tusaale ahaan dalka Nigeria, kooxda argagixisada ee Boko Haram waxay horseeday in ka badan 100,000 oo dhimasho tan iyo markii ay bilowday howlaheedii foosha xumaa 6 sano ka hor. Dalalkaas argagixiso ma aysan keenin keliya dhimasho iyo dhaawac, balse waxay sidoo kale saameyn ku yeelatay dhaqaalaha waddanka oo hoos u dhacay. Adigoo meel kala aadin, waxaa tusaale kugu filan dalkeena. Waxaa nambarka labaad ku jira musuqmaasuqa. Musuqmaasuqa ayaa xidhiidho waaweyn ku yeeshay inta badan wadamada Afrika. Hogaamiyayaasha sare ee dowladda iyo kuwa waaxaha khaaska ah isku mid ayay u qaateen laaluushka. Baaritaan ay samaysay Transparency International waxay muujisay in 4 qof oo Afrikaanka ah mid ka mid ah uu ku qasban yahay inuu laaluush bixiyo, isaga oo ku bixinaya waxyaabaha nolosha asaasiga u ah sida caafimaadka iyo xitaa gudbinta cabashada loo gudbinayo booliiska. Musuqmaasuqa ka jira gobolka wuu sii kordhayaa inkastoo ay jiraan olayaal iyo dhaqdhaqaaqyo ay wadaan bulshada rayidka iyo dadweynaha, halka booliiska loo aqoonsaday inay yihiin kooxda ugu musuqmaasuqa badan qaaradda Afrika. Waxaa nambarka 3 ka soo galay waxbarasho la'aanta. Xitaa ilaa maantadan, qoysaska Afrika qaarkood ma awoodaan inay carruurtooda u helaan waxbarasho asaasi ah. Inkastoo dowladaha gobolka qaarkood ay qaateen mas'uuliyadda arrimaha ku saabsan bixinta waxbarashada asaasiga ah, haddana aagag badan ayaan haysan iskuulo iyo meelo wax lagu barto. Taa oo caqabad ku noqotay carruurta yaryar oo aada iskuulada ka fog iyaga oo lugeynaya maalin walba. Waxaa booska afraad soo galay caafimaad la'aanta. Caafimaadka iyo saboolnimada waa wax isku xiran. Markay qaaraddu awoodi weydo inay abuurto kaabayaal caafimaad iyo nidaam tayo leh, dadkeedu waxay khatar ugu jiraan inay ku dhacaan dabin, taasoo ah in dhaqaalahooda hoos u dhac ku yimaado. Saboolnimada waa sababta natiijada caafimaad xumo. Xaaladaha nololeed ee liita waxay kordhisaa fursadaha caafimaad xumo. Tusaale ahaan, HIV/AIDS iyo kansarka iyo cudurrada kale ayaa kordhiyay heerarka saboolnimada qaaradda. Waxaa booska 5 soo galaya booska juqraafiyeed. Xaaladan ma ahan mid wax badan laga qaban karo. Tiro aad u badan oo ka mid ah wadamada qaaradda Afrika ayaa la silcaya sababo bad la'aan ah. Juqraafi ahaan, micnaheedu waa in geesuhu ka xigin bad oo dhul kaliya ka xigo. Wadamada dhulka xiran leh ee Afrika waxaa ku hareeraysan dalal aan deganayn oo colaad ka buuxdo. Arrimahani waxay dhaawac u geystaan dhaqaalaha wadamada dhulkoodu xiran yahay. Waxaa tusaale wanaagsan u ah Uganda oo ah dal dhulkiisu yahay mid xiran oo aan xad la lahayn wax biyo ama bad ah. Uganda waxay xuduud la leedahay Koonfurta Suudaan iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Derisyadan ayaa sanadadan oo dhan waxaa ka socday dagaallo, taa oo saameyn ku yeelanaya dhaqaalaha waddanka Uganda. Nambarka 6 waxaa soo galay gargaarka caalamiga ah.
inta badan waxaa maqashaa gargaarka caalamiga ah. Xilliyadii la soo dhaafay hogaamiyaasha Afrika ayaa la maqlayay iyagoo ka hadlaya gargaarka caalamiga ah in uu xanibay dadaalada koritaanka dhaqaalaha Afrika. Intii lagu guda jiray shirweynihii afraad ee xukuumadaha dunida oo dhawaan ka dhacay magaalada Dubai, madaxweyne Paul Kagame ee Rwanda wuxuu sheegay in taageerada tabarucadu aysan ahayn in lagu tiirsanaado weligood, laakiin taa beddelkeeda loo isticmaali doono in lagu dhiso hay'ado iyo dhaqaalo. Waxaa jira dad badan oo Afrikaan ah oo shaki badan uga jiro hay'adaha caawiya dadka saboolka ah, sababtoo ah hay'adaha qaarkood ayaa lagu eedeeyay inay u adeegsadaan sheekooyinka dadka Afrikaanka ah ee dhibaatadu haysta si ay u horumariyaan himilooyinkooda gaarka ah. Nambarka 7. Ganacsiga aan sharciga ahayn. Dhibaatooyinka ugu weyn Afrika waxaa ka mid ah ganacsiyada aan sharciga ahayn. Istiraatiijiyadaha ganacsi ee aan sharciga ahayn ayaa khalkhal geliya hawlgallada koritaanka dhaqaalaha Afrika oo weliba hoos u sii ridaya. Siyaasadaha ganacsiga ee cadaaladda ah ee loogu talagalay wadamada Afrika inay ku ganacsadaan wadamada dibadda waxay kobcin doonaan dhaqaalaha Afrika si dhaqso badan marka loo eego kuwa caalamka. Laakiin waxaa la arkaa wadamo badan oo Afrikaan ah inay wadaan ganacsiyada aan sharci ahayn, taa oo hoos u dhigaysa dhaqaalaha dalalkooda. 7daas sabab oo aan soo sheegnay waa sababaha la isleeyahay waxay qaaradda Afrika ka dhigaysaa qaaraddaas faqiirka ah. Ugu dambeyn, Afrika waxay awood u leedahay inay ka sarreyso qaaradaha kale haddii kaliya ay xoogga saarto ka fogaanshaha musuqmaasuqa iyadoo la bixinayo adeegyada aasaasiga ah oo ay ka mid yihiin biyaha, cunnada, hoyga, tamarta, waxbarashada iyo amniga. Intaas ayaan jeclaystay maanta inaan soo gudbiyo. Wassalaamu calaykum.